haddii aan nahay mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed oo ugu weyn yahay madaxweyneheen sharafta leh cabdilcasiis xasan maxamed laftigareen marnaba raalli kuma nihin in maaragtay qof muslim ah la dhibaateeyo qof maaragtay walaal ah dhib loo geysto cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in lagu cayaaro cid ogolaanaysa ma jirto madaxweyneheyna ugu sareeyo mana aqbalayo raallina kama naqanayo saas darteed marka walaalkayna axmed wuxuu naga codsaday oo maaragtay uu ka codsaday madaxweynaha wuxuu ka codsaday wasiirka cadaaladda anigoo ah wasiirka warfaafinta mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed in maaragtay dhibkii loo geystay dadkii u geysteen in maaragtay gacanta lagu soo dhigo marka waxaan rabaa marka in halkan aan ku caddeeyo xukuumatan wa shacban reer koonfur galbeedna raalli kuma aha in qof cirdigiis iyo sharaftiis iyo karaamihiis lagu cayaaro qof soomaaliyeed in maaragtay dhib loo geysto anaga raalli kama nihin dadkii geystay marka waxaan halkan ku caddaynayaa xalay waxay ku baryeen maaragtay xabsiga saldhigga ayaa la geeyey guryadooda laga soo qabtay maxaa la yidhaahdaa adeerkii oo maamada garaacayay asigna waa lasoo qabtay wiilkii kaleed oo maaragtay la yidhahdo cabdiqani maxamed mukhtaar ayaa la yidhahdaa asigana videoga maaragtay dadku usoo wacay oo keenay asigna waa lasoo qabtay labadoodaba way xiran yihiin koonfur galbeed tallaabo shaciyay ka qaaday maaragtay saaxiibadayda booliiska aaday u mahadsan yihiin taliya amiin iyo taliya dugudow aad iyo aaday u mahadsan yihiin reer koonfur galbeed macal booliiskoodii ciidamada maaragtay iyo dowladdoodii raalli kama naqanayaan in qof muslim ah cirdigiis iyo sharaftiis lagu cayaaro dhib ayaa loo geystay qofkaas walaalkayna ah markuu uu codsanayay abtinimo wax ku codsanaya abtinimada ka soko annaga qofka abti haddaan u nahay iyo haddaanan u ahaynba cidnama kama aqbalayno qof in maaragtay deegaanadan qof asigoo joogo in dad uu ka dhibaato u geysto raalli kuma naqanayno maxaa yeelay haddii raalli aad ka naqatid waxaa weeyaan adigna dhaalimiinta ayaad ka mid tahay unsur akhaaka dhaaliman ow madluuman qofka hadduu dhaalim yahay ummad waa in laga qabto diinta islaamka ayaa na amraysa marka soomaalinimada ayaa na amrayso diinteyna ayaa na amrayso in qofkii dhibaato loo geysto in wax laga qabto ciidamada marka booliiska aaday u mahadsan yihiin taliyaasha aaday u mahadsan yihiin taliya amiin iyo taliya dugudo aaday u mahadsan yihiin dadka ay soo qabteen xabsiga la geeyey way ku mahadsan yihiin waxaa kale loo dhiman dadkii soo duubay tvgii ama maaragtay beejkii lagu baahiyey arrintaasi oo ay ahaayeen ayagana gaarsiya tv ayagana maaragtay cabdimajiid wiil la yidhaahda ayaa asigana mas-uulka ah waa la hadlay asigana saldhigga hadda inuu taga ayaan maaragtay telefonka aan u garaacay aan telefonkiis markii la siiyey saldhigga lagaa rabaan nahay marka dadkaasna waa lala xisaabtami doonaa waxaa kaloo rabaa halkan inaan ku caddeeyo baraha bulshada ama maaragtay miidiyaha ama tv ha noqdo ama maaragtay facebook ha noqdo dadka isticmaalo waxaan u sheegayaa qofka maaragtay bini aadinka ah muslimka ah cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa laguma xadgudbi kara haddii qofku weri uu yahay ama saxaafaddu wax ka yaqaano waxaa weeyaan shuruucda wuu yaqaana personal attack qof muslim ah haddana weli muslimnima aad sheeganayso soomaalina aad tahay personal attack ma samayn kartid ama qof maaragtay oo bahdilaad iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo cirdigiisa aad u geysatid maaragtay lama ogolaanayo baraha bulshadana ama ka weri ahaan ama ka saxaafad ahaan sharciga meelay kaga qoran tahay ma laha qofka in maaragtay cirdigiisa iyo sharaftiisa lagu cayaaro meelay kaga qoran tahay ma laha ciddii marka saas ay samayso ay ku xadgudubto qof muslim ah dhibaato ay u geystaan ama maaragtay ay cirdigiisa sharaftiisa ay ku cayaaraan ayagana waa lala xisaabtami doonaa haatan ayaa xabsiga loo taxaabay axmed biif adeerkiisa ninka qabay hooyadiisa iyo nin kaleeto oo abti ah islamarkaasna ahaa dadka maamada sida live-ka ah ku garaacayay oo doonayay inay lacag kaga qaataan axmed biif ayagoo ku xumeynaya islamarkaasna uu muuqaalo dhowra kaga hadlay kana codsaday guud ahaan reer koonfur galbeed oo uu la hadlay si abtinimole uu ku yiri haddii tolkay abtiyaalahay aad tihiin waxaan idinka codsanayaa ninka odayga ah laga qabto sida maamulka ee muuqaalka aad ku soo daawateen wasiirka warfaafinta Ilyas waxa uu sheegay in xabsiga loo taxabay isla markaasna ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo maadaama ay dhibeen nin sheekh ah isla markaasna abti ugu aadan yihiin waliba asigoo ku sugan ee dhanka iyo dalkaasi Sacuudiya
cimraysanaya xajkana ku sugan ayay cadaadis intaas leeg iyo ilmadiisii dhulka ku daadiyeen asigoo ooynaya oo dhahayo reer abtiga iyo waxa laga qabta ninka cadowga ah adeerkii ilaahay amarkiis si live ayuu maamadii ayadoo live ku jirto oo ka hadlaysa qadka ayuu garaacay waliba jirdil u geysanaya oo ummadda Soomaaliyeed ay la yaabeen halka janalka Dooxa Media aad kala socotaan barnaamijkaasi aad ayaad u mahadsantihiin dhamaantiinba inta aan ku kulmi doono isla barnaamij aynkan oo kale waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo